ciidamada Jamhuuriyadda Somaliland ee jidda hore ku sigan ee Tukaraq ayaa waxa ay ku goodiyeen in ay iskaga soo bixi doonaan jiidaha horena soo banayn doonaan. ciidankan ayaa ka godoodsan mid ka mid ah askartaas oo ku dhibaataysan labadii sano ee la soo dhaafay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. ciidamadan ayaa waxa ay iskooya dhigteen jidka isku xidha Somaliland iyo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, halkaas oo isku socodkii gaadiidka joogsaday gebi ahaantiiba. wararkan ayaa gaaray muddooyinkii u dambeeyay halkii u sareysay iyadoo xildhibaanada labada aqal ee Somaliland waa guurtida iyo baarlamaanka ka warameen, iyadoo oo xildhibaanka golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Somaliland xildhibaanana uu sheegay ciidanka Jamhuuriyadda Somaliland inay soo baneeyaan jiidda hore, taasoo ku macneeyay in la maxkamadeeyo taliyaha ciidanka militariga Somaliland waa nuxtaaniye. haddaba xaaladda ayaa la dhowrayaa toddobaadada soo socda sida ay isu bedesho.